waayahay daawadayaal waxaan halkaas kasii wadeynaa wareysigeennii ku saabsanaa fahanka bulshadeena Soomaaliyeed ay ka haystaan oo adeegida bulshada iyo qaabka looga faa'iideysan karo dhalinyarada Soomaaliyeed ee ka soo qalin jebisay jaamacadaha. Ibrahim, marka waxaan gudagalaynaa doorka carruurta. maxay tahay kaalinta ay ka qaadan karaan social worker-ka oo adeegida carruurta iyo sidoo kale in la daryeelo oo wax la baro kaalin wanaagsan laga soo saaro. social worker-ku doorka ugu muhiimsan ay ka leeyihiin child protection ama child promotion si loo horumarin lahaa doorka ugu muhiimsan inay ka qaataan waaye social worker-ku kow waxaa loo baahan yahay in xarumo waxbarasho ama barbaarin loo helo carruurta. run ahaantii carruurta wadanka Soomaaliya dhibaatooyin badan bay wajahayaan ay ka mid tahay dad macallimiin ah oo professional social worker ah ama social worker ka fahansan horta waxa ma dhigaan marka koowaad. marka labaad waxaa faham darro ka haystaa family oo la fahansanayn doorka social worker uu leeyahay oo xagga family ah iyo bulshadii oo aan ku baraarugsanayn doorka uu leeyahay social worker. taas waxay keenaysaa in carruurta dhibaatooyin badan tusaale ahaan waxaa ka mid ah in dhibaato badan ay wajahayaan dhalinyarada Soomaaliyeed. wasiirka waxbarashada Maandhoyd wuxuu sheegay 6 milyan oo dhalinyaro ah oo Soomaaliyeed oo gaartay xilligii ay wax baran lahaayeen inay maanta ay haysan waxbarasho. taasi waa caqabadaha ay wajahayaan. taas waxaa looga faa'iideystay siyaabo kala duwan. tusaale ahaan waxaa ka mid ah in carruurtii la askareeyo oo askareeyaan kooxaha maleeshiyaadka, kooxaha dowladda kasoo horjeeda, qabiilada, systemka maamulada. kuwaas baa waxay ka faa'iideysanayaan carruurtii maadaama ay waxbarasho aysan haysan waxay entertainment kale aysan haysan inay uga faa'iideystaan askarnimo. kow waxaa kaloo ka mid ah inaysan carruurtii haysan goobo caafimaad ama ii sheeg maxaa la dhahaa ay ku ciyaaraan oo kale madadaalo. waxaa kaloo ka mid ah in familiyada qaar ay uga faa'iideystaan carruurtii si ay income familiga usoo geliyaan income carruurtii markaa dhibaatooyin badan bay carruurta Soomaaliya wajahayaan. social worker door ka qaadan karo waxaa ka mid ah kow in bulshadii lagu wacyigeliyo in 6 milyan oo carruur ah waa 6 milyan waa tiro aad u badan oo dhalinyaro ah in ay la'yihiin waxbarasho. taas waxay keenaysaa dhaqaalihii security-gii bulshadii si u dhisan tahay structure dhibaato ku keenaysaa. marka waxaa loo baahan yahay kow wacyigelin, labo in loo abuuro goobo waxbarasho oo schools colleges iyo in laga mashquuliyo dhalinyaradii daroogada iyadoo loo sameynayo goobo madadaalo iyo askaraynta si looga mashquuliyo in loo sameeyo goobo madadaalo. marka dhalinyaradii markaa eegto 3 mid bay wajahayaan. kow daroogo, labo in la askareeyo, 3 oo ah in familigii ay dhaqaale u raadiyaan oo familigu ay ku tiirsanaadaan cunugii yaraa baalasho oo kale u dhiibaan, loos oo kale u dhiibaan in isagii lagu tiirsan yahay isagii lagu tiirsan yahay iyo askaraynta. qodobadaas dhan bay wajahayaan run ahaantii dhalinyarada Soomaaliyeed. taasna waa mushkilad run ahaantii aad u wajahaya wadankeena ama culays ku ah xag horumar xag wax kasta maadaama 6 milyan oo 6 milyan tusaale ahaan waxaa ka mid ah gabdho yaryar oo kale oo tusaale ahaan baa familigu waxay u dirayaan family kale $50 $30 ilaa $70 $100 qofka ugu badan gabar dhan ku shaqeyso 8 jir ah oo $100 la siinayo. tusaale ahaan waxay u labisaysaa cunug, waxay xafaayadda ka bedelaysaa, waxbarashada geenaysaa, waxbarashada ka soo celinaysaa. waa cunug yadii la mid ah oo laakiin fursad u helay inuu waxbarto, laakiin yadii uma helin fursad inay waxbarto. kow familigeedii baana si ay u helaan income ama dhaqaale familigu ku sii noolaado ama waxay sameynayaan inay reerka lagu geeyaan. taas waxaa ka dhalanaysa kow inuu cunugii mushkilad xag nafsaani ah la kulmo. labo waxaa ka mid ah in ciyaalka dhibaato ahaan gabdhihii loo geysto oo dad aan garanayn ii sheeg ku xadgudbaya run ahaantii harassment u geysanaya. marka taas run ahaantii mushkilad aad u badan bay ku haysaa run ahaantii weliba aad sanadadan ugu dambeys. hadda tusaale ahaan waxaa kaloo ka mid ah in gabdhihii
qof center haysto oo gabdhaha barakacayaasha iyo uu marba family u geynayo. Marka taas waxay keenaysaa dhibaatada ugu badan ee waddanka wajahayo waay. waxaan kusii soconaynaa taas la xiriirta gabdhaha yaryarka ah inay u shaqeeyaan reera kale loo geeyo si ay guriga holiisa uga caawiyaan. waxaa soo hadal qaaday in dadka IDPS-ka ay mas-uul ka yihiin qaarkood in gabdhahaas yararka inta guryahooda laga wado guryo kale la geeyo oo family ladal loo geeyo si ay ugu shaqeeyaan. iga maxay tahay marka faa'iido ka soo galaysa in dee gabadhaas yar la qaado guri kale la geeyo laga yaabo inaysan dee ku kormeeri karin oo xaaladeeda aysan la socon karin, faa'iido iga ka helayaan maxay tahay? arrintaas horta aad ay u badan tahay. faa'iido hadda oo la taaban karo oo weyn hal qodob aan dhihi karnaa. halkaa qodob oo ah kow inay familigaas ka helaan income, inay ka helaan dhaqaale. $100 marka familigaas gabadhaas ay ku shaqaynayso miinis waxay ka mid tahay $100 in hooyadeed iyo aabaheed iyo caruurta ka yar lagu biilayo. marka qodobka ugu koowaad oo ah in ay ka helaan resource ay u noqoto il dhaqaale gabadhooda $100 ah. laakiin mushkiladaha waaweyn ee ay sababaysa ama gabadha wajahata ka badan marka dadka IDPS-yada maadaama laga yaabo aabihii inuu haysto 10 cunug, marka wuxuu rabaa in maadaama waxbarasho uu awoodin meel caafimaad uu awoodin in ay resource uu ka helo amal il dhaqaale u noqdaan shaqaale. wayna dhacday kiisas badan oo hadda magaalada ka dhacay aan joogno in gabar yar loo geeyay family kadibna iyadoo dhimatay la helay. wax dilay aabihii ma yaqaano, gabadhiis waxay la kulmayso ma yaqaano, kaliya lacagtaas. familiyada qaar markay u geeyaan reerkaas ama qofka u shaqaynayso maba soo wacaanba markaas ugu dambaysa. marka run ahaan waxaan dhihi karnaa fahamka waalidiinta oo yar ama hoos u yar aan helin wax badan aan ka haysan qiimaha ubadkooda ugu fadhiyo. isla su-aashaasaan ku dhex jirnaa. gabar yar oo 8 jir ah ama laga yaabo in da'da qaangaarka aad ku jirto 15 jir 14 jir ah marka inta la wado guri kale la geeyo laga yaabo in adasaan aragnay aniga ayaan ahaan baa arkay in magaalo kale laga keeno ama afgooyo kale laga keeno ama markoo kale laga keeno muqdisho in la keeno family kale loo dhiibo dadna maalinkaas ay ugu dambayso hooyadeed iyo aabaheed oo laga yaabo markii bishii lacagta loo tuuraayo in la xiriiro gabadhaada fiicanta caafimaad qabta. caqabadaha marka laga soo tago gabadhaas yarka ah ku dhacay familka gabadhaas yarka ah loo keenay laftirkood mas'uuliyad inta la eg ba ka saaran dadka horta gabdhaha yar loo geynayo dad isku wax badan wada fahansan maaha. dadka qaar way kala duwan yihiin. dadka qaar markay arkaan gabar yar in loo keenay sida waxay ula dhaqmaan ubadkooda kale. dadka qaar waxbay baraan gabadhii wax kasta u baahan tahay bay u sameeyaan. dadka qaar laakiin waa number yar waa number aad u yar. dadka qaarna way ku tacadiyaan. tusaale ahaan waxaa ka mid ah in qofkaas loo keenay inuu u shaqeyso in caruurtiisa uu dilo. gabadhii loo keenay inay u shaqeyso ay dhibaato mushkilad u keenaan. waxaa kaloo ka mid ah in familiga loo keenay dad ka mid ah ay gabadhii tacadi xoogan u geystaan. kow gabadhii markii gurigooda laga soo waday kow waxay timi deegaankeedii ka bedelan. waa iyada laftigeedu waa dhibaato. labo dad aysan isku dabeecad ahayn, aqoonin, isku sheeko ahayn. saddex gabadhii oo loola dhaqmo sida ugu liidata. tusaale ahaan in xilli hore la kiciyo oo 9 saac oo habeenimo haddii la kiciyo 10 saac oo habeenimo cunug la kiciyo waa dareemi kartaa tabartiisa awoodiisa. habeenkiina la seexinayo 6 saac 7 saac 5 saac xilligaana aroortii uu kacay habeenkiina xilligaa la seexiyay dhibaatada uu wajahayo. haddana shaqadiina ay ka awood badan tahay ama uusan awoodin. taasaa waxay keenaysaa mushkilado dhibaato badan in qofka maskaxdiisa ay ku reebto ciyaalka. laga yaabo Ibraahimow in gabadhaas yar xilligaas hore la kaciyay 4tii subaxnimo ama 3tii subaxnimo inta la kaciyay seexanaysa 12 habeenimo in guriga dhan ay iyada ka shaqeyso laga soo bilaabo guriga meesha ugu sarreeyay ilaa meesha ugu hooseyso. exactly hadday noqoto in cunno la kariyo, hadday noqoto in ilmaha xafaayad laga bedelo, hadday noqoto in dhul la tirtiro, wixii oo dhan iyada dusha saarayso. wixii oo dhan shaqooyinka jikada, dharka, dhul tirtiridda, caruurka bedelidda, u goglidda. run ahaantii waa mushkilad aad u weyn bay wajahayaan dumarka Soomaaliyeed gaar ahaan
gabdhaha da-da yar oo dadka u shaqeeya. gabdhaha sararka ah ee da-da jira ee shaqeynaya caqabadaha ay la kulmaan mid lasoo koobi kara maaha. inta muuqata ee bulshada u muuqata waxaa ka badan inta qarsoon. inta qarsoonaa ka badan ay wajahayaan. maxaa u diiday dhalinyaradeena soomaaliyeed social workerka barata in dee familiyadii ay wacyigeliyaan? badanaa waxaa la yidhahdaa dadka tacadiyada u geystay gabdhaha sararka ah ee xilliyada hore inta kiciya ku shaqaysta qaarkoodba naba haddee sheeko kale ay arkaan in ilmaheeda ay xibinayso yirahdo waxba iga xaday waxyaaba noocaas. waxaa la yidhahdaa waa dadka wax haysto ilaahay wax siiyo. marka social workerka maxay arrintaasi uga hortegi waayeen wacyigelin badan ay dadkaas u siin waayeen? waa dhibaatooyinka horta wadanku waa badan yahay, run ahaantii lagama sheekeyn karo. run ahaantii qodob ka mid ah waaye dhibaatooyinkaas. social workerku waxay u baahan yihiin kow, dadka waxaa laga gaari karaa laba meeloodba baan u dhihi karaa in social media dadkii laga wacyigeliyo oo wacyigelin dhibaatooyinkan inay jiraan faamiliyadu ay ku hayaan. kow, in laga gaaro iskuuliska, tusaale ahaan hooyadii in la qabto camal waalidka iskuullada ay ballamiyaan sida maamulayaasha, kadibna waalidkii markay iskuulka yimaadaan caruurtooda halkaa wacyigelin laga siiyo. kadibna markaa isbedel baa imaan kara. waxa ugu weyn oo wax bedeli kara ama social workerka uu arrintan wax kaga qaban karaa keiska, waxaan dhihi karaa waqti xaadirkan la joogo waa wacyigelin. inay bulshadaas wacyigeliyaan. arrintaasna insha allah waxaan rajeynaya in social workerku doorkooda ay qaadan doonaan haddii alla idin. waaya gabar yaroo guri ka shaqeynaysa oo laga yaabo in familka ee u shaqeynaysa uu yahay qoys ladan oo ilaahay wax siiya ama qoys dee meel dhexe iska jooga oo kaafin kara noloshooda. caruurta markay iskuulka aadayaan oo subaxii laga yaabo in iyada quraacda u sameyso, dharkii iskuulka ay ku aadi lahaayeen, dariskii u diyaariso, niyad jab tale ayay kala kulmi kartaa maadaama dee asaageedna iskuul aaday iyada u diyaarinayso iyadina ay waxbarasho la-aanta. run ahaantii waa dhibaatooyinka ay wajahayaan ka mid in qofkii uu cunug asaagiis uu waxbarashadii arkayo inuu aadayo. run ahaantii waa dhibaatooyinka, laakiin waxa sababaya kow waxaa ka mid ah dhaqaale la-aan. oo haddii aabaheed ama hooyadeed maanta la joogi lahayd oo dhaqaalahaan awood lahayn waxbay la baran lahayd. kow waxaa ka mid ah niyajab zaa'id inuu ku dhaco qofkii. tusaale ahaan gabadhii hadday 8 sano jirto 10 sano ay reer u shaqeynaysay, 10kaa sano aysan waxbarasho aadin, waxay kow saameynaysaa ciyaalkii dhashay sii saameynaysaa. oo iyadii maadaama dhaqaalaheedu hoos ahaa 10 sano ay shaqaale ahayd, cunugeediina in qaabkaas ay ula dhaqanto horta waa iyadiina way saameysay, jiilkii ka dambeeyay oo iyadu dhashayna way saameysay. waxaan dhihi karaa arrinta ugu weyn qalbi jab inay kala kulmaan. arrinta ugu weyn oo dhalinyaradaas waxbarasho la-aantaas gaar ahaan gabdhahaas guryaha ka shaqeeya qalbi jab bay kala kulmi karaan. waxaa la sheegaa ibraahimow in gabdhaha sararka ay tacadiyo kala kulmaan familka ay la shaqeynayaan. tusaale tacadi markaa ku leeyahay waxaa ula jeedaa in wiilasha guriga joogo qaarkood ay gabadhaas ku tacadiyaan, haddii ay ahaato in ama kufsi ay kula kacaan ama ay ahaato dee in ay si kaloo aan wanaagsanayn ula dhaqmaan. marka bulshada meeqay ka tahay ama intaad soo indhaysay maxaa nooga sheegi kartaa caqabadahaasi jira? horta waa caqabad aada u weyn run ahaantii, inkastoo waxyaalaha maaragtay qarsoon aadka u badan oo xagga hoose loo xaliyo ay badan tahay. gabdho badan oo faamiliye u shaqeeya, tusaale ahaan haddii qofkaas loo geeyey gabadha inuu u shaqeeyo, aabbaha iyo hooyada aysan caruurtooda kantarooli karin, gabadha wax kastay la kulmi kartaa. marka arrintaasi dhacdo waxaa jirta in hoos loo dhameeyo arrintu hoos in labadii faamili heshiyaan, gaar ahaan dhaqaale looga faa'iideysto. in baa reerkii dhalay gabadhan in dhaqaale xoogaa kuusan loo dhiibo, kadibna aabbihii iyo hooyadii gabadhaa dhashay aysan wax weynba kasoo qaadinba arrintii, taasoo gabadhii ku keenaysa qalbi jab, stress, sidaan kuu sheegay tusaale ahaan tuka cambaarle bulshada ay ka noqdo. maadaama gabadhii la kufsado oo bulshada ay ka takoornaanayso, dadkii ka takoornaanayso, iyadii dhan cabsi ay wajahayso. marka taas waxaan dhihi karaa waa mushkilada aadka u waaweyn ay wajihi karaan. boqolkii marka meeqay bulshadeena ka tahay?
runtii inta Tacadigaas soo shaac-baxday waa percentage yar baan dhihi karaa. Inta qarsoon baa ka badan. Adiga percentage waxaan dhihi karaa gabdhahaas lagu xadgudbo 30% ilaa 40% baan dhihi karaa hadday ugu badato bulshada ahaan dhibaatooyinka loo geysto inta muuqata markaan ka soo qaadno inta muuqata markaan ka soo qaadno inta qarsoon baa ka badan oo hoosta loo xaliyay hoos waxa la isugu dhiibay hoos la isugu dhiibay wasaaradda ku shaqo leh badanaaba oo wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka oo caruurta ay soo hosgalayaan maadaama dhanna ay dumar ka tahay dhanna caruur ka tahay doorka marka wasaaraddaas ay ka qaadan karto in ay la socdaan ilmaha yararka ay la shaqaaleysiinayo hadaan la caafimaadkooda iyaga laftirkooda inay wax bartaan doorka ay ku leeyihiin maxay tahay wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka horta door aad u weyn bay ku leeyihiin arrimaha haweenka caruurta iyo xuquuqul insaanka runaantii marka hadda waddankeena eegtid capacity-ga waddanka ay u leeyihiin inay kofargareeyaan ama ofargareeyaan aada u liita waxaa dhibaatooyinka waxaa ka mid ah in dhaqaale oo ay meel kasta ku gaari karaan inaysan haysan wasaaradda laftigeedii waxaa kaloo ka mid ah in security uusan jirin meelaha la tegi karin caruurta iyo dadkaasi ku dhibaateysan yihiin labo waxaa kaloo ka mid ah in dad professional ah oo social worker ah ama arrimaha bulshada bartay inaysan wasaaraddii ka shaqeyn marka taas waxay keenaysaa in dhibaatadiina badato wasaaraddiina ay awood u yeelan weydo inay kofargareyso ama ofargareyso mushkiladii ay wajahayeen haweenka caruurta dhibaatooyinka ay wajahayeen marka taasaa keenaysa xadhiga dhaqaalaha iyo amni darada iyo dadkii xirfad u lahayn ee wasaaradda ka shaqeynaya ama aan ku baraarugsanayn dhibaatadan inay jirtaba marka taasaa keenaysa saddexaasaa keenaysa isleeyahay social workerska laftirkooda waxaa la yiraahdaa de anagu bili-aadan ano guryaheena waxaa laga yaabaa in gabar shaqaalaha ay joogto ama guriga caawiso qaarkood waxaa lasoo wariyay inaysan dee si wanaagsan aysan ula dhaqminoo ugu yaraan gabadhaas aysan tala siinin wadadan kale xukuma fiicna wadadana ku fiican raac in waxyaabaha qaar ee guri ugu dhigaanoo sida inay wax baraan iyo guriga ku baraan iyaga laftirkooda waxaa laleeyahay xal ma keenaanoo mas-uuliyad isma saaraan maadaama social worker aan nahay annaga aa baranay inaan bulshada u shaqeyno haddana ilmihii yaraa ee gurigeenu ku noolaa ee familka qeybta ka ahaa ma siino wacyigelin ma siino oo annagaba ma dhahno waxbaro oo wadadan raaco inta ka baxo marka dadkaas laftirkooda social workerka ah maxaa taloo sii leh horta dadka social workerka faamiliyadooda ay ama guryahooda ay joogaan gabar caawiso ama gabar u adeegta run ahaantii waxaan dhihi lahaa kolley aniga ahaan ma joogto xaafadayada laakiin dadkay joogto laakiin aan waxay ay soo barteen gurigooda ka bilaabin social workerka waxaa loo baahan yahay cilmiga uu bartay inuu gurigiisa ka bilaabo kow inuu waalidkiisa u sheego gabadhan in waxbarasho ay xaq u leedahay ayna iyagu ka bixiyaan maadaama ay familiga ka tiirsan tahay ku tiirsan tahay ama ay ka mid tahay in gabadhaas la geeyo dugsi qur-aan in la geeyo schoolis dadka qaar way sameeyaan laakiin waa percentage aada u yar marka loo eego marka waxaa loo baahan yahay qof kastoo social worker ah oo gurigooda ay joogto gabar u adeegta ama gabadhahan guryaha ka adeega wuu ku khaldan yahay inuu isagoo cilmigii bartay in arrintan gurigooda ka jirto because qofka social worker lama dhihi karaba saas waxaan ka wadaa qofka social workerka kow gurigooda loo baahan yahay inuu waxyaalaha social workerka inuu ka fuliyo ay ka mid tahay waxyaabihii uu bartay inuu gurigiisa ku dabaqo bartay waxaa ka mid ah in caruurta aan la dhibaateyn gurigoodaba inuu ka bilaabo in caruurta la daryeelo la dhibaateyn mushkilada aan loo geysan waa kow in waalidku qaab nidaamsan ama qaab mas-uuliyad ku jirta tusaale ahaan in ciyaalkiisa uusan dirin waxaasoo dhan uu sheego waxyaalihii aan soo baranay social worker inuu gurigooda ka fuliyo qodobka ugu muhiimsan ka mid tahay marka qof aan qodobkiiba gurigooda ka fulin dee waxaan dhihi karaa bulsho kale gormuu gaaraya ama bulsho kale gormuu wax faa'iideyn kara social worker waxaa loo baahan yahay kow inuu gurigooda ka bilaabo uu adeegida bulshada oo ay ka mid tahay in reerkooda uu ku wacyigeliyo muhiimada social workerka uu fahansiiyo labo gabadha u adeegaysana in waxbarasho ay siiyaan waa waajib isaguna uu ka shaqeeyo isaguna uu ka shaqeeyaa magaalada muqdisho hadda ku noolaa waxaa laga yaabaa in
sanadkan keliya ay ka baxeen cilmigan social workerka ay barteen 2,000 oo arday in ka badan gobolada qaar ama magaalooyinka qaar oo hadda cilmigan uu gaarayna tiro intaas la eg ee kasoo baxdo marka sidee la isugu xiri karaa dhalinyarada Soomaaliyeed ee Muqdisho joogta iyo gobolada kuwa kala jooga ee social workerka bartay inay inta isku xirmaan bulshadan wax badan ka bedelaan gaar ahaan qaybtan hadda ka hadlayno ee caruurta si gaar ah haweenkan da'da yar ee guryaha ka shaqeeya waxaa loo baahan yahay dadka social workerka maadaama door muhiim ah ay ka leeyihiin bulshada waxaa loo baahan yahay waxaa jirta urur la dhaho Somali social worker inaan jeclahay umaleynaa ururka waxaa loo baahan yahay inuu ka shaqeeyo dhammaan isku xirka social workerka guud ahaan ee dalka qofka social workerka kow mar inay isku xirmaan labo qof kasta deegaanka uu joogo iyo degmada uu kasii joogo iyo laanta iyo waaxda uu kasii joogo inuu ka fuliyo cilmiga uu soo bartay hadday tahay in ciyaalka mushkiladaha ay wajahayaan in wax laga qabto waxaa kaloo kamid ah in kufsiga wax laga qabto in waxbarasho la-aanta wax laga qabto in drug addictionka wax laga qabto dhibaatooyinka ay wajahayaan bulshada Soomaaliyeed kufsiga oo kale wax laga qabto waxyaalahaas oo dhan in qof kasta oo social worker ah doorkiisa uu toos uga qaato maaha inuu qofka la sugo maaha qofka social workerka looma baahan inuu la jiheeyaba shaqadiisu buux waay iskuulku tagi karaa hospitalisku tagi karaa degmadu tagi karaa waaxdu tagi karaa saldhigga maxkamada dhammaan adeegyadiisa yeelan marka qof kasta social worker waxa loo baahan in shaqadiisa horey ka gartabo looma baahna inaad tiraahid waxaan lacag ma ka helayaa maaha volunteer inaad ku shaqaysid bulshadaada wax u qabatid waay marka qof kasta social worker ah ama gobol ha joogo ama degmo ha joogo waxa loo baahan in meesha ka shaqo galaba deegaankiisa ka shaqo galaba iyo meesha uu markaa uu joogo marka waxaa loo baahan yahay dhalinyarada Soomaaliyeed ee bartay kuliyadan social workna inay isku xirmaan si ay isku siiyaan caseska conflictiyada ay ama dhibaatooyinka markaas waaweyn ee ay wajahayaan si ay u helaan sharing education ah ama tababar waxbarasho ahaan iyo cilmiyada si ay isku dhaafsadaan wixii ay isdhaamaan marka aan qodobka ugu weyn aan dhigi karo waxa weeye in la isku xirmo in qof kasta markaa deegaanka uu joogo uu ka horgalo because shaqadiisu buux waaye maaha shaqo la-aan qof social worker ah oo shaqo la-aana ma jira aan dhigi karaa gabagabadii barnaamijkeenu joognaa Ibraahimow dowladihii kala dambeeyay ee dalkeena soo maray midba midii ka dambeysay way ka yara fiicneed oo tii hore waxbay ugu bedelneed doorkan social workerska ah in bulshada ay wax u qabtaan dowladeena tan hadda jirta aato tan soo socota ha ahaato kuwa kale ka dambeeya ha ahaato sidee dowladaheena ama dowladda hadda jirtaba ay dhalinyaradaasi uga caawin karaan in shaqooyinkoodii saxda ah ay qabtaan ka shaqeeyaan deegaanadooda iyagoo xor ah iyagoo aan la qasbin iyagoo fikiradooda aan la faragelin sidee dowladda ay uga qayb qaadan kartaa iyada laftirkeed in dhalinyaradan social workerka bartay ay dhiirigeliso run ahaantii social workerka iyo shaqooyinka baaxadda leh oo wadanka ugu fadhiyo horta waa aad u ballaaran yihiin u muhiimiin halkan waxaan fariin uga dirayaa madaxda dalka ee awoodaha u leh dadka magacaaba tusaale ahaan gudoomiyaha magaalada gudoomiyaha degmooyinka kansaldhigyada kuwan laamaha everything oo xarun public ah oo ama system dowladeed ah oo bulsho u adeegaysa waxaa loo baahan yahay in qof social worker la fariisiyo hadda dadka jooga run ahaantii wax badan kama fahansana u adeegida bulshada connection ma laha bulshada degmadu uu xukumay laantu uu xukumay ma laha taliyaha iyo saraakiisha xabsiyada ma yaqaanaan qaabka bulsho loola dhaqmo ama doorka sida loo horumarin karo maxaabiistan sida loola dhaqmo marka waxaa loo baahan yahay dadka awoodda u leh ama maamul ahaato goboleed ama kan dowladda federaalka ahaato inay dhalinyarada Soomaaliyeed fursad siiso ee soo bartay social workernimada si isbedel looga arko degmooyinka meelaha ay xukumi doonaan meelaha loo dhiibo si ay iyagu waxay ogyihiin qofka social workerka wuxuu ogyahay doorka uu leeyahay social workerka wuxuu ogyahay wuxuu ugu fadhiyo bulshada sida loo horumarin karo qaabka la sugu xidhi karo oo relationship caqabadaha qaabka loogu gudbi karo bulshadu noocay tahay xuquuqahay leedahay wixii buu fahamsan yahay laakiin qof aan aqoontaa lahayn way adag tahay run ahaantii in degmo uu xukumo
bulsho kala duwan, cultural bay leeyihiin, way kala duwan yihiin, religion bay leeyihiin, diimo kala duwan. run ahaantii marka waxaa loo baahan yahay qof isfahansan u adeegidda bulshada in loo dhiibo madaxda waaxyaha ee dowladdu ay leedahay. waay bulshada laftirkeed waxaa la yiraahdaa marka qof social worker intuu yimaado yiraahda waxaan saan maahanaan saanu ka bedan tusaale nadaafadaba kasoo qaad magaalada marka inta aad tagtid xaafad ka tirsan degmooyinka gobolka Banaadir oo aad dhahdid interlog annaga aan saarano oo qashinkaan aan iska qaadno badanaa dadkeena waxay la soo boodaan qofka mashruuc soo qaatay oo mashruuc nagu dul cunaya sayga laftirkood looga dhaadhacsiin karaa in annaga danteena ku jirto in magaalada aan quruxsano, magaalada aan nadiif ka dhigano, dowladana aan wax ka sugina annaga aan bilaabano shaqada markaas taagan. run ahaantii dadka Soomaaliyeed waxay arkeen bay markasta oo waxay arki jireen ama waxyaalo badan ay soo arkeen bay ahayd in mashaariic la isku cuno, in qof dan wata leeyahay big family. laakiin maanta waxay u baahan yihiin kow in si dhab ah loo qabto shaqadii si ay u arkaan bulshada. kow labo in wacyigelin ah camal in dadku iyagu isku tiirsanaadaan bulsho ahaan, hadday tahay saa sheegtay interloggaas oo kale, qashinka oo kale, biyaha systemyada biyaha in la tuso horta qofkii la dareensiyo ama la tuso in waxaan ay volunteer yihiin in la iyaga tuso ay qabsan karaan. haa oo la dhaho qofkii kasoo qayb gal nala shaqee ciyaalkaaga keen, iyagii la dareensiiyo in waxaan volunteer yihiin in la dareensiiyo. taas ah markasta mashruuc buu kusoo qaatay waa waxay hore u arki jireen. laakiin waqti xaadirkan social workerka waxaa loo baahan yahay in la dareensiiyo dadka bulshada ah inay waxaan volunteer yihiin, isaga laftigiisa nafsadiisa kasoo go'do inuu bulshadan u shaqeeyo, volunteerna ugu shaqeeyo. guntii iyo gunaanadkii barnaamijkeena ayaanu joognaa. barnaamijkan uu marti noogu ahaa Ibraahim Maxamuud Axmed oo ka mid ah dhalinyarada sanadkan ka qalin jebisay jaamacadaha bartayna cilmiga u adeegida bulshada ee social work. Ibraahim adiga ahaan ka Ibraahim ahaan deegaan baa ka timid Muqdisho waxbarasho u timid, qorshaha kuu degsan ee ku saabsan magaaladii aad wax ku baratay iyo magaaladii aad ku dhalatay guud ahaan Soomaaliya muxuu yahay? qorshaha ay degan run ahaantii dadka Soomaaliyeed ama magaaladan aan joogno caasimadda ah ama deegaankan ka soo jeeda ba ahaatee ama si guud badanka aan ka soo qaadno ama guud ahaan wadanka in dhammaan bulshada Soomaaliyeed meel kasta joogaan wax loo qabto, laguna baraarujiyo muhiimadda ay leedahay social worker ama u adeegidda bulshada. waa kow in wax la taaban karana ay qabtaan oo anugu aan ka koowahay dhalinyarada Soomaaliyeed oo social worker ay ka mid tahay in wax la taaban karo ay wadankan ka qabtaan una qabtaan bulshadooda. kaalinta adiga sida goonida ku saaran maadaama aad tahay qof social worker ah oo wadankii ku nool oo laga yaabo in deegaano kala duwan oo hadda kadib maro maadaama de wadankii hadda meelo badan oo xor yahay, adiga kaalinta goonida ku saaran oo is leedahay markaad magaalada wax ku baratay ka tagto ama magaalada laftirkeedba qorshahaas koowaad iyo labaad iyo saddexaad wax ka qabo hal iyo laba nolosha. run ahaantii qorshayaashu waa badan yihiin. waxaa ka mid ah kow in bulshadii la wacyigeliyo, laguna wacyigeliyo iskaa wax u qabso. tusaale ahaan waxaa ka mid ah in dhalinyarada waxbarasho la-aanta meel kastay joogaan wadanka si kastay ahaataba in wax la baro. waxaa la dhahaa aqoon la-aan waa iftiin la-aan allah. in dhammaan dhalinyarada meel kastay joogaan ama deegaankaygii ama deegaankan haddaan joogaba in waxbarasho ay helaan. waa qodobka koowaad ee aan rabo in aan meel kastaan joogo wadanka inaan isku taxallujiyo in dhalinyaradu helaan waxbarasho. qodobka labaad oo ah in bulshada la baraarujiyo, laga baraarujiyo dagaalada qabiilada ku salaysan, diimaha ku salaysan iyo dhulka isku qabsiga ku salaysan inaan ka baraarujiyo. in weliba si gaara ay dumarka Soomaaliyeed waxbarasho u helaan kana faa'iideystaan. waxaa la dhahaa hooyo gabar wax la baray waa hooyo wax la baray. gabar wax barataa bulsho wax baratay. bulsho wax baratay baa dhahan. maamada iga khaldantay sorry. labadaas qodob baan isleeyahay
ii qorshaysan inaad si guud xoogga uga saaro. hadasho Haa. waay waa mahadsantahay ibraahim guud ahaan daawadayaal waxaan halkaasi kusoo gabagabeyneynaa barnaamijkeenii ku saabsanaa fahanka bulshadeena soomaaliyeed ay ka haystaan oo adeegida cilmiga bulshada iyo sida looga faa-iideysan karo dhalinyarada soomaaliyeed ee kasoo qalinjibisay sanadkan iyo sanadihii kaleba jaamacadaha ku yaala dalka barnaamijka waxaa marti noogu ahaa ibraahim maxamuud axmed oo kamid ah dhalinyarada sanadkan ka qalinjibisay jaamacadaha bartayna cilmiga oo adeegida bulshada ee social work tan iyo intaan ku kulmi doono barnaamij noocan oo kale ah waxaa idinkaga tegaynaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu